deegaanka Daarusalaam oo sanadkii ugu horeeyay ka qayb galayo tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ayaa waxay maanta diyaar garowga ugu dambeeyay ee ku sameeyay garoonka Axmed Gurey ee ku yaalo xaafadda Shirkole waxaa diyaar garowgii maanta ugu dambeeyay ee ka soo muuqday deegaanka Daarusalaam ay sameynayeen dhammaan ciyaartooyda sanadka ku medeli doona tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir deegaanka Daarusalaam sidoo kale deegaankani ayaa ciyaartooy kala duwan ka keensaday gobolada dalka macalinka sanadkaani hogaamin doono macalin Cabdullaahi Cali Bile kabtanka deegaanka iyo qaar ka mid ah ciyaartooyda ayaa ka warsan doona diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku jiraan tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir waa dhawahay aad u mahadsantahay wallahi si fiican aan u soo diyaar garownay muddo badan aan tababarka wadnay ugu yaraan 5 bilood oo tababar aan soo wadnay hadda waxaan rajaynaynaa xilligii mirihii aan guran lahayn wixii aan beeran in la joogo waqtigan si fiican aniga iyo deegaankaba tartanka waa ku cusubnahay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan meel sare ka gaarno tartankan aniga badanaa higsigii wuu fog yahay mar walbana waxaan rajayaa meesha ugu sareysa inaan gaaro waxaan rajaynayaa inaan meel sare ka gaari doono tartankan aad iyo aad haddii aanan aaminsanayn inaan tartanka ku guuleysan karo waxaan juhdi ma bixin lahaynba hamigeyga gruubka waa ka weyn yahay ilaa iyo meesha ugu dambeysa kama dambeysta inaan tegi doono ugu dambeyn aan inaan finaal tagaya aaminsanahay waan rajaynaa insha Allah inaan ku guuleysto anoo macalin badanaa dadka waxay dhahaan nasiibkaagu wuu fiican yahay marka nasiibkayga inaan tijaabiyaan rabaa anoo ciyaariyaan maadaama aan koob badan kula soo guuleysto 2 koox haddana waxaan rajaynayaa anoo macalin Daarusalaam inaan tijaabiyo oo aan guuleysto si fiican aan ugu kalsoonaa ciyaartooy da'yar waaye oo tayo leh talent leh oo edeb leh akhlaaq leh maalin kasta soo xaadiran tababarka waxaan rajaynayaa inay ayagana magac ka samaysan doonaan anna magac ii samayn doonaan deegaankana meel fiican gaarsiin doonaan insha Allah inaan meel fiican aan tartanka ka gaari doono oo magac iyo maamuus aan idiin samayn doono idinkana inaan garab istaagtiin maadaama aad dadka deegaanka tihiin anoo 3 dhibcood ciyaarta ku guuleysto ciyaarta kadib inay wareysan doonto insha waa dhawaha marka diyaar garowgeena aad u adag yahay waqti badanna waa soo bixinay hadda gabagabadii ku jirna insha Allah waxaan isku diyaarinaynaa inaa koobkan wax fiican ka qabsan insha Allah wallahi dadka inaa ka fiicana maaha laakiin waxa waa garasho ee macallimiinteeda maamulka i garteen waa wallahi aan rajaanteeda aad u wanaagsan tahay groupkaasna waxay ila tahay inaan ka soo bixi karno insha Allah sanadkii ugu horeeyay way dadka hadda noo dhil badankoodna sanadkii ugu horeeyay way ayagana waxaan rajaynayaa inay bandhig fiican sameeyaan insha Allah wallahi hammi aad u weyn kale yahay maadaama kubadda hadda basic ka soo bilaabay insha Allah heerkeeda kala duwan waxaan rajaynayaa inaa si wanaagsan oo sii qaato insha Allah wallahi waxa leenahay taageerayaal badan waa haysanaa ciyaartooy aad u fiican waa haysanaa oo tayo sare leh insha Allah kuwan kuuna u fiican mehelinayna saan aaminsanahay waa ku dhawahay Rajab Sports aad baa mahadsantahay aad baa ugu faraxsanahay in maanta annagu aad baa u diyaar garownay diyaar garowna muddo bil ah hadda almiteen diyaar garow adag baa sameynay waa sanadkii ugu horeeyay ka soo muuqdo koobka degmooyinka gobolka Banaadir waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto koobka degmooyinka rajada qof walbana waa sidaas waxaan u rajaynayaa dhammaantood inay ku qanacsanaadaan kubadda cagta oo cadaan iyo madow waxaan u rajaynayaa dhammaan ciyaartooyda in dadaalka halkan ku sameeyaan inaan noo muuqdo garoonka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan mataqaan kubadda cagta oo cadaan iyo madow laakiin waxaan rajaynayaa haddaan noqon kooxda ugu horeysa ka soo baxda inaan noqono kooxda labaad oo ka soo baxda أحمد يونس والله الحمد لله حضرنا مسابقة مرة كويسة والحمد لله أي أول مرة أقصد دواي والسلام يا بعض رجع كابل تي في والله مدة 5 bilood ka badan ee degmada la soo diyaarnay dhamaan ciyaarahamada waa diyaar marka waxa filaynaa insha Allah inaan diyaar garowga ka mir dhali doono wallahi waxa waaye dhamaan ciyaarahamada iyo macallimiinta iyo shaqaalaha degmada anaga aaminsan inaan aanay degmada ugu awood badan marka waa la sheegaa groupkeenu adag yahay laakiin insha Allah waxba uma joojin doono wax ka soo baxayna insha Allah anaan waa sanadkii ugu horeeyay ka qayb galo tartanka deegaanada gobolka Banaadir wallahi riyada ka leeyahay waxa waa inaan tartankan deegaanka meel sare gaarsiiyo إن شاء الله مال في عننا كسر مقندون بقول كيو بقول رجدنا كواد ما إنا جروبيت كسر بحنا ورجينا جروبيت كسر بحنا هدف كينو وإنا ترتن خاندنا محل ديجان كومر كواد وديلا إن شاء الله وحرك دونتين عيار معصب يوحقبض عصب يعني واحد بدون سكر ديان ترتنك sikastaba haatee deegaankan ayaa gala groupsi waxayna is group noqdeen degmooyinka hodan kaxda kaaraan iyo xamar shajab macalinka sanadkan hogaamin doona deegaanka Daarusalaam Cabdullaahi Cali Bile qaar ka mid ah ciyaartooyda deegaanka ayaa dhammaantood qowraay ah inay sanadkan meel fiican ka tiigsan karaan tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir oo dhawaan la filayo in laga furo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka